Men på tal om det, hur ser den stereotypa bilden av en svensk somalier ut då? Det ser ut som kriminell, bidragstagare, analfabet. Det kommer ifrån våra föräldrars generation, den första vågen av flyktingarna som kom hit. Visst, de var inte lika utbildade som vi kanske är. Men det är fortfarande den bilden som finns kvar och det är fortfarande den bilden som vi behöver motarbeta. Okej. Dhalinyarada qoyska ku nool ee qoyskaas ka tirsan waxay la jaan qaadeen dhalinyarada Swedish-ka ninka dhalayna oo aniga ila daay dadkayga wuxuu doonayaa in dhaqankii iyo diintii isaga uu ku soo barbaaray in ilmihiisu ay ku barbaaraan gidaar baa dhashay meesha marka kala dhex galay oo aan muuqan kana xididada wuxuu ku daystay xaggii Swedish-ka iyo ama Yurub meesha ku joogayba kana kiyuru ku dhagan yahay oo wax uga haray ay salaad ay tahay hadda si fiican sakerna om sig själva. Så jag tror helt ärligt, om vi tittar på media till exempel, vad finns det för bra fördomar? Media är bra på att ta upp det negativa fördomskänner ju på det. Och det är liksom just det. Innan liksom det här programmet kom igång satt jag i tåget med en gammal libanesisk klasskamrat. Han var så här, hallå, kan du tänka på någon bra liksom fördom om somalier? He was just there, helt chockerad. Och bara, nej men alltså jag kan komma på bra fördomar om juggar, om iranier, om irakier. Till exempel, de är driftiga, de blir läkare, de är jätteduktiga, de kommer från länder där folk är utbildade. Men jag tror att fortfarande så finns det de här fördomarna om oss att alltså vi är bara liksom, för även kolla, på min arbetsplats så får man det här klappet, alltså en viss arbetsplats som jag har varit på, det här klappet på axeln. Ja, du är inte som de andra. Integration markuu adkaanaya marka galka dadku adkaanaya qofku wuxuu leeyahay diintii ka tagin magartay flexible ma noqon karo sida Arabaha iyo Turkiga iyo Yurubta kale kuwii jooga iyo Bosniyaanka iyo kale flexible ma noqon karo qofkaas waxbuu flexible ku yahay in dalka dambeeyo diin ka dambeeyo dhaqan ka dambeeyo adduun ka dambeeyo wax ka dambeeyo wanaag ka dambeeyo dawlad ka dambeeyo wixii shakhsigiisa u baasaaran qofkaas kan laakiin meel aadam diinta u baawart sax way. Alltså i storhet i det här samhället så finns det inte så många bra fördomar om oss. Alltså hur vi blir stigmatiserade och den representationen som finns om oss i samhället som outbildade, som kriminella, som folk som inte integrerar sig i samhället. Jag tror att det påverkar även vår generation och jättemånga människor kanske till och med börjar tro om de sakerna om sig själva. عيالكو حتى مالمها هلي حتى فصحة حتى بحيلي هايو داسكن نجي وفصح داقس النجي وحكاوتها كسي درن عيالك مركا laga soo kaxeeyo waqtigooda u dhamaado laga soo kaxeeyo iyagoo ooyay laga soo waday way jirtaa taa waxa daliil u ah marka caruurtii runtii waxay u arkaan gurigi cadaab بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan wadana silsiladii barbaarinta caruurta qaybtii saddexaad qaybtana waa qaybtii ku saabsaneyd caruurtu markay qaan gaaraan markaa insha Allah waxaan sida marka hore baan u sheegan inuu doctor ku takhasusay mihi caruurta korintooda laakiin cilmiga waa qofku waa inuu dadaala oo cilmiga bartaa oo dadka ka soo bartaa macallimiinta ama shuyuukhda ama waxaas oo حاجة لبا أيدود بسوقاتي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أيدك بعد شوي تكتب حياة اقرأ كلمة وقرة واحدة اقرأ أمرك اقرأ وحاخري تلاوضنا وحويان بدك آياتك له وحويان بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحويان قفكوا هدان وحبي قرينين تدك أقونت له بالله وحلويتيه هرو مركا لبدا waxa ku bilaabaya waxayaan midna amar iqra qofkuna wax akhristo weeyaan waalid baa tahay raadi baar internetka gal dad kaasho ummadaha kale wax garanaysa wax weydii caruurta barbaarintooda isbedelka ku dhici kara qofku maaha markuu maalintu aroosay inuu soo aqal galo caruur dhalay islaaho caruurtiina markay كيرا دباتودو dadka weydiyo ku lahaa wana caruurta iga dhawaatooday maaha kow waxa ka sii horeysay intaan aroosin guurku muxuu yahay laba caruurta korintoodu maxay tahay
ساويا مركو قان قارنا وسيدي marka marxaladaha heedhe waan qofka ku sii hortagaa oo wixii bartaa oo eega wasala u sheegno waxa carruur korintu waa cilmi maaha dhaxal qoomiyadaha kale Yurub marka joogno qoomiyadaha kale dhulka le maaha kuwa dadka dhulka le maaha European-kan waxa ka hadlay qoomiyadaha kale imaada jinsiyadaha kale ee shay ka yimid haddaan la eego iyo kuwa Afrika qaarkood ka yimid haddaan la eego way nagu dhaamaan asbaabaha nagu dhaamaan waa maxay waa in aanu lafteenu raadino ogaana waa dadaal waa akhris waa waxbarasho waalidku uu xilqaamaya waxbuu akhrinaya waxbuu baranaya marka waa saa weeyaan waa in aanu lafteenu la jaan qaadno dhulalkan joogno caruurteena muujinay caruurta ugu fiican ee ugu wanaagsan waa silsiladahan waxa soo dhigay waxa weeyaan inaan kala faa'iidno oo aan caruurtan laftooda caruurteena dhulalkan Yurub joogta inay noqdaan generation la jaan qaadi kara oo wax baran kara markay weynaadaan oo cilmi aqoon labadaba maadi iyo diiniba labadaba haysta marka waalidku maanta dadaala Britain nasan doona insha Allah waa maxay qaangaarnimadu qodobada ka hadli doona koow waa maxay qaangaarnimadu goorma ay tahay xilligay tahay qaangaarnimadu waa maxay istaamaheedu sidee loogala macaamili doona waa maxay daba qaangaarnimadu waxa weeye xilli oo ilmuhu markuu ilmo yar yahay iyo markuu qaangaarnimadu soo galayso u kala dhaxaysa waa xilligu sanadaha u dambeeya qaangaarnimada waa muddada wax ku jirku isbedel weyn muujinayo iyo aqliga ilmuhu marka waxa arkaysa ilmuhu isbedel weyn oo degdega ku dhacaya oo in la jaan qaadid ka hor intaanu qofku ilmuhu intaanu xilliga gaarin ka hor inaad fahamtid weeyaan waxan oo aad u diraasaysid adigoo og oo fahamsan waa maxay xilligan isbedelada imanaya saan qofku markiiba qaracan ku noqon oo la yaabin waa ilmahaygu isbedelay oo ilmahaygu dabeecadiisa saa noqotay oo ilmahayga saa ku dhacday oo ilmahaygu uu diiday ilmahaygu uu necib yahay ilmahaygu lama hadlo ilmahaygu saaxiibadiisu raaca aniga ma raaco aniga lama hadlo waa saa weeyaan marka xilligaad inuu qofku isku diyaariyo marka waalidku diyaar ahaado weeyaan taasaa muhiimada aakhirana marka la imaado ilmahan waa lagu weydiinayaa maaha maxaad u dhashay dhalnimadu maaha un cunto siiyo oo seexiyo dhar u xir waa waxyaalo badan oo tarbiyadu mid ka tahay waalidkuna maaha waalidku marka dhibku timaado soo kaca waa waalidku la socda dhibaatada lafteeda oo markeeda horeba diraaseeyay fahamsan oo xitaa isha ka fahmi kara markiiba inankiisu markuu ama inantiisu isbedelayso la ag taagnaanaya ilaalinaya waxyaalaha ku soo qaadnay waalidka positive-ka ama waalidka fiican goorma ay tahay xilligu qaangaarnimadu waxa kala dhaxaysa 11 ilaa 14 hablaha ka yar horeeya 10 ku bilaabma ilaa 13 marka xagga biology ahaan xitaa jirkeedu inantu isbedelaya waa in qofka inay ogaataan oo marka hore soo sheegay jirkiisa ilmuhu iyo aqligiisu labadaba isbedelayaan waa maxay istaamaheedu maxay marka istaamaha balka qaangaarnimadu kow wuxuu neceb yahay ilmuhu oo cadow leeyahay qof walbo dhaliila ha dhaliil marka ilmaha xilliga markuu gaaro waayahay laba wuxuu jecel yahay caayda dadka maamulka gacanta ku haya ama qudwada waalida noqoto ama macallin noqoto aduu macnahan wuxuu muujinayaa inuu ka soo horjeedsado qofka maamulka gacanta ku haya wuxuu jebinaya amarna ma qaadanayo xilligaa markuu gaadho markaa qofku diyaar buu ahaanaya uu fahmaya markaa markuu waalid yahay wuxuu oranayaa inankaygu waa inuu markaa waalidku sii diyaariya ilmaha ka hor intaan xilligaa gaarin hadduu la tacaamulo ilmihiisa si jacayl muxibo galgacal saaxiibtinimo waalidka hooyada aabbahan sheegay labadaba waxaa markaa ka dhalanaysa xaqaa cilaaqad weyn ilmihii waa waxaan aan ka hadlaya waxyaala oo fidrada oo saliima macnaha ilmahoo dhan baa ka siman macnaha waxa weeyaan waa wax caadiya waa wax dabiiciya waa wax fidrada
waa wax saxiya weeyaan markaa inuu arrimaha diido ama jebiyo marka aduu diyaar baa u tahay diyaar baana ahayd ka hor ilmihii waa tustay inaad tahay waalid fiican waa xataa ina galgacal kusoo barbaariyay ilmihii buuxiyey waxyaalaha badan uu rabay hadday ahaato xagga nacamtii hobbigiisu yahay iyo xagga marka caadifadiisu tahay wixii oo dhan buuxiyey ilmaha damiirkiisu markaa wuu soo laabanaya oo keligii buu soo canaananayaa markaaba leeg waxyaalaha aan badanaa in ku leeyahay qofku diyaar u ahaado marxaladaha isbeddelka carruurta iyo marxalada carruurta waa waxa weeyaan saanu qofku qaracan ku noqon ula yaabin hadhow hebelow icaawi hebelow heblaa icaawi waa laga fiicanaya wuxuuna jecel yahay inuu keligiis ku noqdo aragtidiisa xaggaana wuxuu muujinaya kalsoonida inuu keligii aragti leeyahay iyo inuu caddeeyo inuu koray qof weyn inuu yahay markaa waxaan ahay qof weyn baan ahay weynaada weeyaan markaa haddaa xagga aragtida haddii aragtida inuu ku dhegsan yahay uga tanaasul laakiin dhinac kale uga soo mar waxa tahay aabo leen wax daweynaya baa tahay adigu laftaadu waxa tahay qof wax korinaya leen wuxuu jecel yahay inuu sameeyo waxyaalo caddaynaysa inuu yahay nin weyn wax walba uu caddaynaysa inuu nin weyn yahay uu sameynaya marka ilmaha xilliga waa inaad adu laftaadu ka daba tegtid oo egtid muxuu jecel yahay hobbigiisu muxuu yahay interest muxuu ku yahay activitete muxuu jecel inuu sameeyo waa inaad la sheekaysid ilmaha la hadashid waad fahmi kartaa waad garan doontaa hadhow ka hor bay macnahaan ka hor haddaad isdiyaarisid waxaan oo dhan wuu ku fudaanaya horta laakiin aabbaha markiiba ka dhex toosa waa aabbaha markii horeba soo qaadanay waxa weyn aabbaha dabdemiyaha ama aabbaha ku koriya carruurta sida macnaha amar qaado un tilmaamaha wanaagsan uu leeyahay markuu ilmuhu qaan gaaro maxaa ka mid ah wuxuu jecel yahay kuwa isaga ammaana damiirkiisu wuxuu jecel yahay kuwa isaga ammaana markaa waxaa arkaysaa waalid isweydiinaya kule niyo ilmahaygu aniga ima dhegaysay qaar kale baa iska wataba oo haabo waxma dubaya ilmaha markaas oo kale waxa la sameeyaa oo kale matan oo kale haddaad aragtid inuu ilmuhu qaarka dad ilmo kale saaxiibadiiya wax ka dhagaysto oo wax ka maqlo faham markaas oo kale ilmaha waxa ammaana dad kale ammaana dad kala qadariya dad kala siiya jacayl muxibbo aanan siinin haddaan ilmaha adu aadan ixtiraamin aanad u ammaanin dee dadka kale ammaana buu raacaya ogow ee qadariya oo ixtiraama damiirkiisu aad ilmuhu tilmaamaha uu leeyahay markaasoo kale oo fiican waxaa ka mid ah damiirkiisu aad iyo aad buu u soo jeeda laakiin kuma muujinayo macnaha damiirkiisu waa soo jeeda macnaha watanan ku leeyahay wuxuu odhanayaa niga aabbahay waa inaan amarkiisa jabiyey maaha ama inaan ka soo horjeedsado maaha waa ninkii ama hooyaday waa galgacal iyo muxibba igu soo koriso wax walbaan u baahnaan ayaday siisay waan ku qaldamay ha ka soo noqdo aad buu u yahay daacad dadka ammaana waa waxyaalaha carruurteena iminka marka laamiyaasha iyo taagan yihiin dadka la iska qaataan macnaha dhallinyarada marka xilliga gaaraan inay guruubyada iyo magaranaysaa groupation dadka groupationku waxay siinayaan ammaankii waxay siinayaan maxaan ku lahaa inuu maxaan ku lahaa ammaankii ammaantii ammaankii gruubkan baa ku dhex jirtaa anagu waxaan ahay dad culus tilmaamaha wanaagsane kale uu leeyahay waxa ka mid ah inuu wuxuu leeyahay daacadnimo buu leeyahay cid kasta oo la macaamisha inuu isagu qof weyn yahay oo qof qaan gaara oo kala dee qof dacanti weynaaday macnaan qofkaa wuxuu hayaaba daacadnimo wuxuu haysanayaa ama ku dhegaya sawir kasta oo wanaagsan oo dadku ku dhex arkeen macnaha waxa weeyaan sawirku wuxuu noqon kartaa positive oo ma negative ilmaba arkaysa isagoo qaar kale la dagaalamaya ma garata hadduu isku arko inuu dadka dila yahay mar walba dagaalka ma joojinayo wuxuu leeyahay dadku waxay arkaan sawirkay arkaan waxa weeyaan sawir nin gaangisaro dadka dila
haddaad aragtay ilmaha isagoo laamiga taagan oo iskaar cabaya haddaad adigu nin qof weyntaho hormaray oo saa u eegay wuxuu arkayaa eegitaanka adigu eegaysay la yaabsan tahay markuu jacdaa kaliyaata indhahaasaa u eegtid markiiba wuxuu arkaya in aadu keer siisay aad macnaa ihtimaam siisay marka sigaarkaba ma joojin weligaa lihi waxa weeyaan waa bilcakis xilligaa ilmuhu markuu gaaro qaangaaro sawir waxa markaasoo kale inuu aabuhu dadaalo oo geeyo ilmahan meel ama inantan meel uu geeyo ee hobbigeeda ama enerjigan ku jira meel positive kusoo saari karto oo dee waxyaalo fiican kusoo saari karto ma garan dadka kale anugu la degannahay dhulalkan way ku dadaalaan carruurtooda waxay maal bay geliyaan way dalxiisiyaan meel bay geeyaan waxyaalo badan bay u qabtaan waa ilmihii waana marka ina maal gelisid weyn macnaha si aad adigu laftaadu ilmuhu heshid maskaxdiisu korayso jirkiisuna korayo aljismu saliim bilcaqli saliim jirkiisu hadduu saliim yahay caqligiisu saliim buu noqonayaa marka waa inaad waqtigiisa buuxisid intuu heli lahaa bulsho kale oo sawir qaldan siin doontaa sawirkaasina ku dhegsanaan doono waxa tahay nin muruq leh dadkaa disha gaangiisar baa tahay waxa tahay dadku way ku soo eegayaan oo labiskaaga oo si kale oo dhinac u kala qallifan baa iyo istaylkaaga waslaa dheg baan xiranaya dhagaha doololaya timaha jilcinaya qaababkaas oo kale marka ilmuhu hadduu helo dad ama mujtamac ama uu helo maxaan ku lahaa kolley dhulkan marka la joogo dee wax walba xum waa la joojiyaa oo dadka mujtamaca ka qabanaya ilmihii kulanaya waar jooji sigaarka tuur waar dadka haddii waar dagaalka jooji waar laakiin dhulkan yurub marka la joogo dee ilmihii ku qabanaya marka qofku intaa diyaar ka ahaada weeyaan qaybtii saddexaad waa dhammaad muxaadaradu qaybta saddexaad kolley sanadkan waa dhammaad 2020 ilaahay aan nooga dhigo sanadka soo socda 2021 sanad khayr qaba biidnillaahi kariim ilaahayna waxaan ka rajeynayaa awlaadiina inuu wala ilaaliyo oo awlaad fiican rubaayad iyo akhlaaq iyo diin iyo mucaamalad fiican ahaadaan kuwa waalidkooda u duceeya iyadoo nool iyo iyadoo geeriyoodaba labadaba waa camal saalax noo noqdaan dhammaanteen insha allahu kulley muxaadaradan qayb waa part 1 weeyaan kani part 2 kulley waxaan kusoo qaadan doonaa masalows oo dee haramkaas muxuu yahay oo dee magaranaysaa ilmaha lagu ilaalin karo oo safetygiisa jacaylka respect wuxuu yahay self